waddaniyada marka waxaan ku qaxaynaa waxa weeyaan halgan weeyaan ma aha sheeko iyo inaad qolkaaga dhexdiisa intaad fadhiisatid aad baraha bulshada iskaga soo qortid sidoo kale waa hiil mataqaaniin qosolka marbuu hiil galaa maqasha qofka waddaniga waxaa la yidhaahdaa marka dalkiisu sibibixdo qofka marka dalkiisu cawradiisa qaawanto marada saaraan ku shimbira waaqlayn qofka dalkiisa carab af adin maskax qalin aragti socod qofka ku difaac ugu hiliyaa la yidhaahdaa waddani kaasaynu odhanayna waa qof waddaniya qofka marka dalkiisu dhibaato maxaan ka wadaa hadda soo ma jirto xaalado siyaasadeed dalkeena soo kuma jiro qofka waddaniga ahi waa inuu ku taagnaadaa qiyamka soomaalinimo ka hor intuusan qofka eegin qofka xilka haya inaga muhiim inooma aha laakiin mansabka inugu matalaya ayaa muhiim inoo ah marka dalkaagu marka uu cawradiisu qeewanto marka madaxdaadu ay simbiririxdaan ma aha inaad baraha bulshada balaayo ka soo buuxisid waxa aad ka sheekaynaysaa waa sharafta dalkaaga iyo dadkaaga ma aha sharafta farmaajo mana aha sharafta khayreed waxa aad caayaysaa waa sharaftaada iyo saxada waxay kugu matalayaan mansabka soomaalinimo waa ra'iisul wasaarihii dalka Soomaaliya waa madaxweynihii dalka Soomaaliya waa gudoomiyaha baarlamaanka dalka Soomaaliya waa wasiirka dalka Soomaaliya marka adiga personal attack bin hadaan Soomaalinahay aan ugu badanahay inaga aanu ka fakarno koo intaan qofka dabeecadiisa aan ka fakirin aan ka fakarno war mansab noocee ayuu ugu matalayaa waa wasiirkaygii dalka Soomaaliya kaasa muhiim laakiin saxaarada aan ku jaangayno ma noqonayso marka hiil maxaa la yiraahdaa dalkeenu marka cawradiisu faydanto marka dalkeena la khiyaameeyo dalkeenu waa dalka gardaamada ugu wado waa in dalkaaga marka la khiyaameeyo aad tiraahdaa war dalkayga marada xageen ka saari kara sharafta dalkayga xageen ka asuri kara ka hor intaan ka fakirin baraha bulshada maxaad soo qortaa hiil buu u baahan yahay dalkeenu sidoo kale ilaashi buu u baahan yahay in la ilaashado waxaad haysatid inaad ilaashatid maxaa ka horeeya inaad baratid waxaad haysatid inaad baratid waxaad haysatid baa ka horeysa dhibaatada kale in haysata waxa weeye xabaabi dhibaatada kale in haysata waxa weeyaan Soomaaliya haddaan nahay ma naqaano Ilaahay wuxuu nagu irsaaqay ma naqaan waxaa inoo muuqda laakiin waxa wiilka Mareykanka jooga Ilaahay ku irsaaqay baa inoo muuqda haddaan tagaa wiilka Mareykanka jooga Ilaahay wuxuu ku irsaaqay baa inoo muuqata laakiin waxa inoo muuqda Ilaahay naga wuxuu nagu irsaaqay Soomaaliya inaga haddaan nahay Ilaahay wuxuu na siiyay dal Soomaha khayraad buu na siiyay ay nooc weyn oo dhigay bad iyo bari buu isku keen xindaabay xoolihii oo dhan buu inoo keenay markaasaynu ku xisaabtamaynaa wiilka buush dhalay intaasoo dollar baa u soo xarooto bishii qotoo dalkayga ilaah maxaa barf noogu diin weyde ilaah barf baa naga dhimaa hadda kumaanku nuuco oo ilaahay tirabeena buu ina siiyey marka haddaan Soomaali nahay war ilaahay wuxuu inagu arsaaqay kombiyuutar iyo telefoon iyo cirka in la galay ilaahay inaguma arsaaqay war ilaahay xoolo inagu arsaaqay bad iyo bari inagu arsaaqay aan barana waxaan haysanaa